أنا مقعيقة محمد أحمد جوهي هذا واحد شوقنا ماشي اللي هايك بان شوقنا وعمل مقالة وهو كل قول كان والله ضاي كميت هاي والله والله ينك مركا ساكن يا ماشي كسرنا قرنية وحفلة دمبان كسرنا قرنية درتين لكن قبض أنا وأنا شوقنه هذا أنو دجال كمت قرنا أنو كسي وضنه وحوي ورجيسة عليه ورجيسة أيام هذا أنا ساكن كسرت قرنية وعيدا كان كأني مثل مارسا waxay u jirtaa 2 kilomitir ayay u jirtaa Maarsa wargeysa marka de Maarsana iyaga waxa weey cadawga ayaa dhanka shaqo jooga laakiin anagu Maarsi iyo Maarsana xaggan ka joognaa oo wargeysan dabada ku haynaa xagga shan iyaga ka jooga wargeysa xalay shay goobahan inay ka mid tahay goobaha dib uga furtay halkan iyaga jooga markii laad ka gaadhin iyo goobahan dagaalada iyaga joogay oo wadadan iyaga rafkeen ka soo leexanay laamiga ka soo leexanay iyaga joogay bundadan iyaga ka celinay hadda aragtay xaggan waxa ka meeshan la oranayay neek meel la yiraahdo yaa iyadana ku xigto oo kala wareeg neegna wajaale ayaa ma taqaana iyadana ayaa kala wareegno iyadana magaalo fiican oo degdegma ah wajaalana waxa xaga ka sii wargeysa marka tan oo ahaa muxuu ahay meeshan la yiraahdo magaceeda hike iyo neek iyo wajaale iyo wargeysa afarta magaalo kala wareeg afarta magaalo meeshan la yiraahdo hadda loo dhinac kala joogno oo la yiraahdo Maarsana waa meesha sanada noo dhiman taana waxaan qabaad hadaan xafladani aan soo noqonin maanta waan ka qaadi lahayn banaanku nimanka waa niman eega mas'uuliyiintoodii oo dhinteen arday yar yar oo waxa ahayn oo mataqaana buuraha saaran ba ka joogta intaana waxa weey durduran nalma dhan oo u jijeen fikirka laga qabo iyo waxa weey ana waan ka qabnana caadi ma hadii oo soo goojinayna gabigeedaba oo soo goojinayna ciidanka qaranka iyo ciidankan liyo xaylka deegaanka iyo kan kale ee maleeshiyaanka iyo mataqaana hawlana diiradana anaga nagu dirsadeen markaan anagu meesha tagnay aanu garab istaagnay aanu buuraha ka dhacnay aanu igreeyaa galnay ayay waxa weey nagu diirsadeen oo ay shaqada qabteen markii hore xogaa habacsanaan way dhacday mar hal mar laakiin gadaal baa ka saxnay oo aan mataqaana ciidanka garab istaagnay marka arintaan shaqada qabanay hadda eeg meeshan waxay jirtaa 140 kilomitir xagga ka soo tahay ayay halkan iga hike waxay ka tahay xagga 140 kilomitir 140 kilomitir ayaan dhaafinay marka maxad kula dardarmaysaa idinka maanta halkan noogu yimidna ma sha Allah dawaad mahadsantihiin de waxa weeye de waxaad ka soo socoteen 3,000 kilomitir 3,000 kilomitir maadaama nooga timaadeen idinkii generaalkii ciidanka deegaanka xukumay iyo waftigii u watay yaanu waxaan leeyahay waan soo dirteen qaabka noo soo dirteen waxbaan u gudin anagu shaqadii waan qabanay wax ceebana ma naan keenin waadna arki doontaan waa sii socon doontaan ciidanka waad arkaysaan goobtana waad arkaysaan afarta magaalana waad arkaysaan waan tusaynaaba afarta magaalo intaan kor istaajinaan oranayna waa tameel hibla waxaan kamid ah ciidanka xoogga gaarka ee jooga gimbaarka hore ee waldiya kabaabi haddaan ka warbixiyo buuraha waaweyn ee arkaysaan waxaan ka furanay jundaagi waan ka furanay hadda halkan waxa idin ka horeysa afar magaalo idin ka horeysa hal magaalana idin ka dambaysa jundaagi aan ka furanay waldiyo oo kale xagga waa laga soo galay xaggan anaga ka joognaa in yaroo go'doona halkan joogto inay isdhiibtay eega diyaar ah inta ma haystaan saad iyo saanad midna ma haystaan marka intan iyadu maanta xafladana naga soo dhax gashay maanta waan kicin lahayn intan marka jundoogu soo wixiisu iska dhamaaday wax yar baan nooga harsan propagandada waxa weeyaan annaga hana la wareystaan leena dadka wax propagandeynaya ee jooga Ethiopia annaga hana maqlaan annagi waxa weeyaan waxaanu ka nimnay kiilaamisi baanu ka nimnay waanu joognaa wax khasaarayna gaarin jundoogina meel baanu saaray moralaan ka waran ciidamada qaab hawlgal ku socdo moraalku aad iyo aad buu fiican yahay moraalku 100% aad buu fiican yahay moraalku sidii waxa weeyaan ee gaan soo kacnay jundoog aan u bilownay inaan waxa weeyaan meel saaro moraalku aad buu fiican yahay sanadka cusubna soo dhaweynaya Ethiopia dhamaan waxaan leeyahay shacabweynaha Ethiopia hambal waan leeyahay waxaan joognaa hadda goobta la yiraahdo hike gaar ahaan warshada tareenka yaan ku sugnay hadda 2 bilood iyo 17 habeen 2 bilood iyo 7 habeen baan joognaa waan maleynaa deegaanka Amara Kilil koonfurta Ethiopia jundaa waan waxa weeyaan u soo baxnay dagaal inaan galnaa u soo baxnay dagaalkan waxa weeyaan meel fiican wada noo maraya inaan deegaanka dalka Ethiopia waxa weeyaan ka dhigno nabadgelyo waxa qorshahan u nimid saan rajaynayna 7 gudi waxa weeyaan uu aad u hagaagayo sida maalintii ugu horeysay waxa weeyaan meelaha qalaad baan u nimid
deegaanka ka soo baxnay aad baa loo yaabana waxa weeye waxa la lahaa deegaanka Soomaaliyeed ma garan xawin ciidan ugu deeqay Tigray ugu deeqay waxa wala baabinayaa baa la lahaa haddana waxa noqonay waxa weeyaan la dhabarta deegaanka Itoobiya waxa weeyaan deegaanka Soomaalida ama Itoobiya oo dhanba waayo fikirka maalinta hore nagal qabin fikirka nagal qabo kala duwan yahay maalinta hore way baabayaan baa la lahaa laakiin maanta ma garanaysaa waxa weeyaan ciidan awood leh oo wax difaaci kara waxna xajin kara kalsooni calaamaday waxa weeyaan muhiim ah isabaanay waayo waxaana daba taagan deegaanka Soomaalida daba taagan shanka maalinta hore isagaan soo qaaday isaga halkaan keenay qadanaaga dhulka wajahada isagaan siiyay xiriirada isagaan noo jeexay haddana maanta xaflad buu noo dhigay waxa uu nala joogaa isagoo wata wariyaashii fanaaniintii waxa weeyaan maamulkii waxa weeyaan deegaanka oo dhan wata wuxuu akhbaar ka wadan waxa weeyaan isagaan noo sheegi doona waxa weeyaan rigliman waan sugeynaa hadduu ilaahay yiraahdo halka la yiraahdo ma garanaysaa waxa weeyaan 170 kilomitir waxa weeyaan jindaaga ka saarnay bas waxa weeyaan hadda hal buur oo yar oo go'doon la yiraahdo go'doon waxa weeyuu ku jira afar dhinac baa laga joogaa xagga bidix baa laga saaraya xagga mid hoos baa laga saaraya xagga waldii waa laga joogaa xagga ma garanaysaa waxa weeyaan gor xaggeed waa laga joogaa annagana xagga baan ka joognaa ka celinaynaa marka inay waxa weeyaan oo gaajay waxa raadaan halka ku baabaan oo qabanaa rajaynayna hadduu ilaahay yiraahdo sanadku cusub aan rajaynayna insha Allah Itoobiya oo dhan farxad iyo moraal iyo nabadgelyo waxa weeyaan ku soo weynaa rajaynayna